kale mataqaaninka loogu magacdaray degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi wadaadkii Soomaaliyeed ee aqoontiisu ay qaaradaha isaga kala gooshtay safarkii uu kaga tagay Muqdisho isagoo aan garanayn meel uu u socday iyo xukunkii jasiiradii caanka ahayd ee Maldives. taariikh laga qariyay ayaan ku bayaanin doonaa sheekadan. Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi waxa uu ahaa nin caalim ah oo aad u yaqaanay diinteena suuban ee Islaamka. waxa uu ahaa nin caan ka ah magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ilaa uu xuduudka ka tallaabay magaciisa. Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi qarnigii 13aad ayuu ku dhashay magaalada Muqdisho oo uu ku barbaaray. waxa uu noqday wadaad caalim ah oo isku kali yeelay faafinta diinta Islaamka. Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi wadaadkii caanka ka noqday gudaha Muqdisho waxa uu buraashada u biyeystay inuu cilmigiisa dunida kale la wadaago. wixii uu duur jeexo marna badaha jibaaxo doonidiisii Sheekh Cabdicasiis waxay baroosinada dhigatay jasiiradda Maldives ee koonfurta qaaradda Aasiya. si milge iyo maamuus ku dheehan tahay ayaa loo soo dhabeeyay Sheekh Cabdicasiis. dadka deegaanka iyo maamulkaba uma kala harin marxabeyntiisa maadaama uu ahaa wadaad daaci ah oo dar alle iyo diin faafin u socday. Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi waxa uu saldhigtay jasiiraddaasi caanka ah ee Maldives ilaa ugu dambeyn uu hoggaanka dalkaasi noqday. taasi waxay ka dhigan tahay inuu ku guulaystay fikirkii uu u socday oo ahaa fidinta diinta Islaamka. waxa uu noqday Soomaaligii ugu horreeyay ee ka taliya jasiiradda caanka ah ee Maldives oo hadda ah jasiiradaha ugu quruxda badan dunida ee dalxiiska iyo tamashleenta ku wacan. malaayiin ayaa u dalxiis tagda jasiiraddaasi oo ku taalla koonfurta qaaradda Aasiya. sidoo kale kumanaan Soomaali ah ayaa niyadda ka jecel inay mar-uun tagaan jasiiraddaasi si ay ugu soo dalxiis tagaan, halka Sheekh Cabdicasiis uu qarniyo ka hor halkaasi u tegay faafinta iyo fidinta diinta Islaamka. hadda xilligan jasiiraddaasi inta ku nool waxa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay 500 oo kun oo qof. dhammaantood ama inta badan waa Muslim. dowladdu iyo maamulka ka dhisan waxaa asal u ah Islaamka. dalkaasi Maldives oo ku yaala qaaradda Aasiya in uu noqdo dal Islaam ah waxaa kaalin weyn ka qaatay wadaadkii Soomaaliyeed ee Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi. safarkii Sheekh Cabdicasiis uu dar alle ugu ambabaxay meel uusan garanayn waxa uu dhalay mirahaasi oo hadda aynaan jirin wax lagu doorsado. jasiiradda Maldives waa jasiiradaha ugu quruxda badan xilligan oo kaalmaha hore kaga jira dalxiiska dunida. inta ku nool waxa ka badan inta u soo dalxiis tagda sanad kasta. laakiin waxaaba intaa ka muhiimsan inay tahay meel dhaqan Islaam uu ka jiro ugu yaraan. Sheekh Cabdicasiis al-Muqdishaawi waa wadaad caan ku ahaa fidinta iyo faafinta diinta Islaamka. waa ninkii loogu magacdaray degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho. sidoo kale waa ninka loogu magacdaray masjidka caanka ah ee ku yaala degmada Cabdicasiis. taariikhdiisa in badan oo ka mid ah dadka hadda jooga ma baran ama waa taariikhaha duugoobay, laakiin Soomaalidu ay u baahan tahay inay wax ka barato.